saaxiib ani waa dhintay walaalahay oo dhan way igu dul ooyeen waan arkayaa war anu waa dhintay maxaa ooyeysiin baan iska leeyahay ii duceeyaniyo cadaabo qabri iyo waxba ii sugaaye kadib saaxiib waa lay aasayniyo waa lay qaaday qabrigaa laygeeyeysaa intaa oo dhan caadi si toosa dadka dhan ay eg jooga waxay leeyihin oo dhan waa maqlayaa aniga cajilad dhimashaa ii daaran laakiin digahayga wax walba way maqlayaan dala kalaa la ii daaray aniga laakiin qabrigaa laygeeyey xamuuddaa laygu rogay waa la iga tegey saaxiiboo malagii baa ii yimid wallaahi bilaahi caadi man rabbuka baa layga yidhi saaxiib waa su-aasha ugu horreeyey qabriga marka tagtay lagu weydiinaya rabbigaaga sheeg baa lagu odhanaya kan yare adduunyada ka yimidow man rabbuk baa lagu odhanayaa saaxiib ma garata saaxiib rabbi allah baa yidhi saaxiib waa ka jawaabay diintaada sheeg baa layidhi diintayda waa islaam man diinu nebiga maxamed waan wada sheegay su-aashii qabriga saddexdiiba markaan ka jawaabay waxaa laga yidhi waa badbaaday jaranjartii koowaad ma arkaysaa waxaa la ii shiday camalkaygii oo dhan markaas waxaa laga yidhi saasaad ahayd nin wanaagsan baa ahayd dadka ma aad dhibi jirin hadda qabrigii waa ka jawaabtay wixii oo dhan waa la ii tikariyey saaxiib laakiin baa laga yidhi cadaabtaa galaysaa niyo ehlo cadaab baa tahay cadaabtaana galaysaa waxaa oo dhanna waxba kama jiraan aad ka soo gudubtay waayo waxa rukunku waa salaada salaadana ma aad tukan jirin saaxiib taariku salaad baa ahayd marna waa tukanaysay marna ma tukanin jimcaad tukanaysay waana run markaan 18 jirka amaba tukaninba marmar jimcadda la iska tukanayay baa dandoon xaafadda intoona waan soo tukanaya kubadda iska tegayba aabo cadaabul qabri baa tahay hal mar ciishaan idhi markaa qofku markuu dhinto adduunyada laygu ceshiyo moogta qofku dhinto ma soo noqonayo qofku markuu dhinto ma soo noqdo moogta laakiin anu ma dhimane waxun baa lay tusayaa waxaan idhi hal mar ha lay celiyo waan soo cibaadaysanayaa kadib si aan jannada u galo may waad ogtay inaan la iscelin lagumana celinaya laygeeri ma garad kadib saaxiib waan ku celinaynaa hal jaanisaan ku siinaynaa orod soo cibaadaysaa laygeeri alxamdulilah markii la isoo celiyaan koomay ka soo kacay marka bil iyo 18 cishe kadib markii aan la isoo celiyaan idhi adduunyada laygu ceshaan yacni kala garashada inay igu soo noqoto يا ما فهمت عادي kadib saaxiib waxaan soo kacay ehelkay iyo bilay 18 cishay dul jooga qaar iska murugaysan yihiin adeero adeerkay saaxiib oo markasta salaada tukayga oran jiray oo lugayga fadhiyo quraan ugu akhriyay soo kacay waxaan siriniyo maalintaasaan anu aqliyeystay bis maalinta aqliga ma horreyn ba saaxiib marka saaxiib de isma faaninay laakiin waa la isoo aylo cadaab baan saaxiib qofka duu tukan waa aylo cadaab mood xadiis dhan waay haddii salaadaadu hagaagto taraka salaad faqad kafar صح no الفرق بين المسلم والكافر الصلاة لكن حديث وحي أو كما قال عليه الصلاة والسلام haddii salaadaadu hagaagto camalkaaga intiisa kale wuu hagaaga haddii salaadaadu xumaatana camalkaaga intiisa kale wuu xumaana adigana maxaa riyo ku aragt adoo lagu yiri wanaagsan hadda waxa sameysay haddana waxa waxba kama jiraan lagu dhaha salaad mid ku jirin wajida marka saaxiib cajiib waaye second chance lagu siiyo ilaa uu ku jiro anyway saaxiib maalintii aan koomaa ka soo kacay kadib salaadii aan bilaabay wardoonta dusheeda ku tukanayniyo ma sha Allah saaxiib dadka qaar way iska fududeysanayaan salaadaha mugta war fiil hadaa meel kale ka tukan weysaa lagu yiri farta ka tuko beema wasax sabrad macna salaada dadka qaar way iska ayagoo caafimaad qabaan koo badan ma tukanaya laakiin salaada hadaa tukan weyso oo saas aan noqoto xitaa farta ka tukani war baabuur hadaa saaranta burciyo madheys gaariga laga daga hadhow aan tukana weysaa hadayba ku dhowrantay adoo fadhi sida tukanay ilaa gaariga halkaas u socdaa door ma fahanti la jiro come on bro معنا